waxaan salaamayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladan ay ugu horeeyaan golaha wasiirada nagala soo qaybgalay halkan wasiirka wasaaradda waxbarashada Dr. Jama wasiirka wasaaradda cadaaladda Dr. Maxamed Cali Faarax wasiirka dowlaha wasaaradda hawlaha guud maamulka jaamacadda iyo maamulka labada jaamacadood ay raahdo iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha ardada kala duwan ee halkan isugu timi waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh salaan kadib runtii aadan waxaan ugu faraxsanahay maanta halkan inaan kaga soo isugu nimaano xafladda qiimaha badan mustawaha qiimaheedu uu ka ballaaran yahay jaamacadda Boosaaso ee hoos joogto uu gaarsiisan yahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda reer Puntland intaba runtii aad waxaan ugu faraxsanahay maanta inaan halkan u wada joogno heshiis ama xaflad lagu saxiixayo heshiis iskaashi dhammaystiran oo dhan walba leh jaamacadda Boosaaso iyo jaamacadda Nahda oo runtii ah jaamacad ka tirsan jaamacadaha Suudaan haddaan wax yar oo introduction idinka siiyo barnaamijka iyo programka halkan waxaa marti inoo ku ah jaamacad ka tirsan jaamacadaha Suudaan oo ay dhiganayeen arday badan oo wadamo kala duwan ah intii markii ay ka dhacday dhibaatada wadanka Suudaan runtii waxay dad walba raadisay sidii loogu dhameystiri lahaa waxbarashada ay wadeen ardadii dhiganaysay jaamacadda nasiib waxaan u yeelanay inaan halkan kusoo dhaweyno jaamacadda Nahda oo ardadeedu ay waxbarashadooda ku dhameystiranayaan jaamacadda Boosaaso iyagoo ka sii wadanaya waxbarashada meeshii ay marayeen insha Allah ilaahay dankiis runtii waa qiyam iyo qiimo weyn in arday international ay jaamacadda timaado dawlado kala duwan ah yimaadaan wadanka Soomaaliya guud ahaan oo meeshii ugu horeysay aan malaynayaa ama jaamacaddii ugu horeysay oo arday meel kale ka yimi wadan kale u dhashay uu yimaado suu waxbarashadiisa ugu dhigto guul bay waxa u tahay cid walba oo magaca Soomaaliya aan baadhihi karaa gaar ahaan Puntland waxay muujinaysaa nabadda iyo horumarka aynu haysano arrinta in laynoo ku soo dhiirado in waxbarasho maanta laynoo ku yimaada runtii waa wax weyn waxay la tahay marka in mas'uuliyad weyn ay ka saaran tahay saynu u soo dhaweyn lahayn walaalahana aan ugu ogolaan lahayn una soo dhaweyn lahayn say iyaga laftigooda waxbarashadooda ugu sii wataan waxay wax gaar ah u sii tahay jaamacadda Boosaaso inay iyadu noqoto meeshii koowaad oo hostigaraysay waxaan aad uga mahadcelinaynaa runtii in dawladda ay garab buuxa nagu siisay maaragtay in ardadaas ay u siisay siday u imaan lahaayeen waxgaradka magaaladu sidaas oo kale ay garab buuxa ula istaageen oo siday ardada loo hoostigareyn lahaay u imaan lahaayeen waan rajaynayaa marka in ardada jaamacadda laftigooda iyo bulshada magaalada ku nool intuba ay doorkooda qaadan doonaan waxaan rabaa inaan wax yar background ugu laabto wadanka Suudaan oo runtii ahaa aabihii iyo hooyadii ummadda Soomaaliyeed markii uu dhacay burburkii waqtigii dawladda Soomaaliya jiray dawladaha ugu badan oo waxbarashada siin jiray ardada Soomaalida ah wadanka Suudaan buu ahaa haddii la soo gaaray burburkii iyadoo aan dawladi jirin bay waxay go'aan ku gaareen dawladdii wadanka Suudaan in ay waxbarasho u fidiso qof kasta oo Soomaali ah iyadoo hadda ku aqbalaysay duruuftu sida ay tahay waxaa loo furay jaamacadaha oo aan lagu dhigan jirin wax lacag dadka shacabka ahi waxay u fureen guryaha inay kula noolaadaan ardadii ahayd muxuu ahaa ka kala imaanayay wadamada kala duwan iyo meelaha kala duwan intaa kadib waxaa la yaab ahaa ardada Soomaalida ah waxaa mamnuuc ahayd markii Suudaan la joogay inuu yiraahdo anigu ajnabi baan ah waxaa la dhihi jiray adigu waxaa tahay waafi looma ogolayn Suudaan marka la dhex joogay
السودان مركز الدحشو باليوم وقالين أرضية صومالية إنه أجنبي يسوون نفسي يسوون يا رب قف السودان أهل وسودان كل هذا وحالا به تروافد مذكر أنا لما نكون هناك ما ممكن أنت تقول أنا أجنبي وأنت كنت في السودان ما دمت صومالي لازم تقول أنا وافد كان كذا مركا أنت أصبح كانت مركا إن ضدك الصومالي ضاعي يعني سي بحل ولا برتان كمانان أرضية واحد يجن شري وحكو برا شري السودان ما أنت مركا وحلا ينكر رد الجميل مركا وحلا ينكر دبعتي الباقي شري وردن كي أنت دبعتي أسكت شري إنه نجرب كذا إنه نستعجنه أنه كجماعة بوساسو يلا عن كاشان إن الدولة ده وح إنه رمتي أفر الباب كستا أرضنا أي ودي جامعة نهضة وحنو قراني وحكستو أولادنا سيدا أرضنا أي معركة تأهل لهاين فاسيلتيغا iyo waxay u baahan yihiin ay waxbarashadooda ku dhameystiran lahaayeen waan rajaynaynaa waxa u dhimanna wixii dawlad dhankeeda jirana dawlad dhankeeda in laga helo wixii shacab dhankii jirana in shacab dhankii laga helo ardayda jaamacadda dhigata waxaan rajaynaynaa dadkan walaalihii weeye waa sax luqadiina ma yaqaanin laakiin qof walba inaad يعني تستان هرت ولا عليه إن يهين كعصوتان بريهين وجيسان ما عرفتان هو وحيارها البهانيين يفاسيلتك تستان سوقينا عبدان هو عوانين وحكى ذيقنا يا وبهانيين سوق ويسان حفلتها عليهم كعصوتان أرسلين كعصوتانين ذكر برنامج مركز عليهم كعصوتانين أي كلا صعنانين إذا كلماتو أنا ولا عليه سوق ويسان رنتي يا رب ما أنا بفرح سنة هاي maanta programka maaragtaa in uu miro dhalo ardayda maaragtaa ay si fiican u bartaan waa soo koobayaa ardayda jaamacadda boosaaso runtii evaluationka iyo markii ay sameeyeen iyaga laftigoodu indhalaan looguma imaan qiimeyn bay sameeyeen qiimeynay ku sameeyeen bayna jaamacadda ku doorteen waan rajaynaynaa anaguna inaan quality-ga jaamacaddu meesha ay joogto meel kasii fiican annagoo wada jir ah aan wada gaaro maadaama iyaga laftooda ay yihiin jaamacad cariiqa international runtii waxaan rajaynaynaa annaga laftooda inaanu maaragtaa muxuu ahaa si fiican u kala faa'iidaysano jaamacaddu meeshay joogtay oo kaasisay capacity-geeda in lagu doorto in ay maaragtaa muxuu ahaa ay hostigarayn karaan arday international in iyadana saasoo kale maaragtaa aan meesha kasii fogeyno oo meel fog ay tagto haddii la yidhaahdo waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan cid kasta oo maaragtaa muxuu ahaa soo dhaweynta iyo dejinta programkan ka shaqaysay oo aan uga mahadcelinayna maaragtaa garab istaagga joogtada ah waxaan mahadcelinaynaa golaha wasiirada inta nooga timi oo nagu sharaftay runtii in ay barnaamijka kan iyo soo dhaweynta ardadan iyo maaragtaa muxuu ahaa witness gareynta ama ka maqnaanta ka anshaha insha Allah inaanu damaanad qaadayno ballan qaadayno inaanu ardadaas wixii baahi ah oo ay qabaaniin aanu dhamaystiri doono iyagana aan ka rajaynayno wixii dhanka dawladda jira iyo wixii dhanka shacabka jiraba inay qayb ka ahaan doonaan aad iyo aad u mahadsantihiin